oo lagu daadiyey beer qodxaa oo maalin dabayli dhacayso anagoo cagacad la yidhi soo gur ujeeddadeedu waxa weeye dad idinka fiican shaqaale idinka fiican oo aan arkay intii aan soo shaqaynayey wallaahi baan u jirin billaah khilaafaadku waa iska yimaadaan waxbaa la isku diidaa waxbaa la isku oggolaadaa maalinna waa heshiis dadku maalinna heshiis maaha laakiin saasooy tahay haddana bini aadamnimadii iyo shaqadii ayaa ka dhaxaysa waxaa idiin taagan diyaarad motoorkeedu yahay jet aan marooxadda ahayn oo idin sugaysa oo ay tahay inaad kaxaysaan oo jamhuuriyadduna dul saaran tahay oo aad kor u qaadaan waayo waxaad tihiin afkii jamhuuriyadda somalilan baad tihiin intii anigu aan islahaa samay in kulligii inaad isleedahiin wada sameeya weeye laakiin aniga nasiib baan ilaahay ii siin inaan gudteeda gaadho laakiin waxaad iigu ballan qaadaysaan maanta wixii aan ka tegey oo qaranka u lahaa oo ahayd in indhihii iyo dhegihii jamhuuriyadda aad noqotaan inaad si howlkarnimo ah aad u qabataan oo aad uga shaqaysaan biidni illaah haddii ilaaha yidhaahdo muddadii yaradaan idinla joogay anigu waxaan u malaynayaa mas-uul sidaan u lugeeyey wasaaradda inuu jiro u malayn maayo xafiis kasta waan idinku yimi goob kastoo shaqo waan idinku yimi dad baa waxay u haystay inaan macaan qabo oo aan luglugaynayo laakiin waan caafimaad qabaaye idinkana waan idin baranayay qof kastaa wuxuu qabtana waan baranayay dadkuna isku wada mid maaha dad shaqeeyaana waa jiraan dad iyana shaqeeyaa waa jiraan oo laba shaqo sugeer maysa laakiin kuwa iyaguna shaqeeya dambe waxaan jeclaan lahaa inay noqdaan sida kuwa hore u shaqeeya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu